Assalaamu calaykum walaalayaal. Waxaa laga yaabaa in badankeennu maalin walba aan ku dukanno gurigeenna annagoo Allah subxaanahu wa tacaala uu inoo dhammaystiray lixaadkeenna, amaba laga yaabo inaan salaada jimcaha keliya aan ku dukanno masjidka. Laakiin wiilkan lagu magacaabo Mucaag ee u dhashay dalka Yemen waxa uu aadaa masjidka maalin walba. Mararka qaar waxa uu ku socdaa xabadka si uu u gaaro masjidka. Waa uu rafaadaa, laakiin kama jeedsan karo naadiga ugu yimid masjidka ee ah xaya cala asalaah. waxa uu mar walba ula dagaalaa waalidkiisa inuu salaada subax ku tukado masjidka, laakiin waalidkiisa uma ogola xaaladiisa caafimaad awgeeda. annagana waan awoodnaa, laakiin ma samayno. keliya Mucaaq intaas kuma eka dadaalka uu u gala khayrka iyo wanaagga oo Allah subxaanahu wa tacaala uu ka rajaynayo. maalin walba waxa uu ku tukadaa safka hore, waxa uu ku jiraa safka koowaad. waxa uu yimaadaa waqti hore, waxa uu aqriyaa qur-aanka kariimka. intaas kuma eka salaada maqrib kadib waxa uu fuulaa maalin kasta qaybta sare ee masjidka. ma taqaanaa sababta uu u fuulayo qaybta sare? waxa uu u fuulayaa si uu u qayb galo xalqad xifdiska qur-aanka ah. waxa uu qayb ka yahay ardada xifdisa qur-aanka kariimka. carabkiisa aad buu u adag yahay, wayna ku adag tahay inuu akhriyo, laakiin sidaas iyadoo ay tahay haddana wuu akhriyaa. الذين هم فيه مختلفون. كمال، ايوه كيف حالك؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني؟ تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ ايوه تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا على حسب أحيانا قبل واحد بعد واحد، يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. salaada cishaha kadib waxa uu ku laabtaa gurigiisa, laakiin ma ogtahay dhibka uu ku maro waddada. waddada waa mugdi daran. salaad walba kadibna waxaa kaxeeya oo caawiya qaar ka mid ah dadka ku xiran masjidka. waxaa intaas dhan uu u marayaa oo u samaynayaa sababtoo Allah subxaanahu wa tacaala ayuu jecel yahay, wuxuuna ka rajaynayaa inuu jannadiisa geeyo. walaalkayga daawanaya muuqaalkan, haddii ku dhammaystiran yihiin lixaadkaaga, ku dadaal inaad salaad walba jamacadda aad ku dukatid. rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yimid maalin nin camoolo ah. waxa uu ku yidhi, rasuulkii allow, aniga camoolo ayaan ahay, salaada subaxna cid ii soo kaxaysa ma lahan oo ii keenta masjidka. ma helo ee gurigayga ma ku dukan karaa? waxa ugu jawaabay rasuulka sallallahu calayhi wasallam, soo ma maqashid adinka? waxa uu ugu jawaabay, haa, haddii aad maqasho adinka imow. ka waran qofkii indhaha lahaa ayaa la leeyahay masjidka imow. ka waran annagoo wax kasta haysan oo inoo dhammaystiran yihiin, maxaa inagu waajib ah? waxaan Allah subxaanahu wa tacaala inoo weydiinayaa inuu ina hanuuniyo, jidkiisa wanaagsanna uu nagu hagaajiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.